بسم الله الرحمن الرحيم. guddiga xiriirka fulinta nala jooga dhammaan kooxaha tenniska saxaafadda oo Astaan TV iyo ciyaartoyda aad u mahadsantihiin. maanta waxaa farxad noo ah inaanu furayno horyaalkii la magac baxay Astaan League oo furi doono turkiisa aan bilaabi doono. waxaa farxad noo ah in horyaalkan uu yahay kii 2021 ka ah sanadkan ah. waxaan rajeynayaa in arrimaheena noo fududaadaan si aan ugu qabanno ciyaaraha tenniska sanadkan. aad u mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo taariikhda tahay 26 May waxaan u taaganahay inaan maanta qortoorka u sameeyno kooxaha xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska ka qayb gali doona horyaalkan ugu magac darna Astaan Tennis League. run ahaantii sida idin muuqata horyaalkii hore activities oo dhan meeshaas ku soo kulansan yahay ilaa bilowgii ilaa dhamaadkii ilaa maaragtay meeshuu ka bilowday oo ahaa sidii maanta oo kale qortoorka sida u jeedin horyaalkaas waxaa maaragtay koobkii qaaday Zakariya oo maaragtay u tartamayay Notaayo Shabeel. sidoo kale gabdhaha sidoo kale waxaa qaaday Yasmin oo ayadan u tartamaysay Ladan Travel. maanta horyaalka wuxuu uga duwan yahay activity-gii horeeto. markii hore single loo dheelay kooxaha kaliya ahaayeen, laakiin hadda waxaan rabnaa insha Allah inay u dheelaan ciyaaryahanada labo ama koox walba ay laba ciyaartoy qaadato. markee waa soo gaabina 5 kooxood aan ka dhignay. 5 kooxood markee min laba ciyaartoy ayay u dheelayaan. haddii ku kala adkaan waayaan single-ka waxay isla tagi doonaan insha Allah double. haddii single ku kala baxaan kooxdii winners ay noqon doontaa insha Allah haddii ilaahay idmo. waxaan u joognaa sidoo kaleeto meeshu ka soo bilowday hadda waatana qortoorkii oo nooga dhacay Johar Hotel sanadkii hore. 10 kooxood ayaa dheelaysay, laakiin sanadkan wuu ka duwan yahay insha Allah 5 kooxood aan ka dhignay. waxaana maanta diyaar u nahay inaan qortoorkii sameeyno. halkan waxaa noogu jira kooxihii magacyadooda waan ugu talagalnay in maaragtay loo qortooro iyo numberska ay kala heli lahayeen. waa 5 kooxood ka bilaab 1 ilaa 5. laba qaybood waaye. qaybna waxaa ku jiro magaca ku jiro, qaybna waxaa ku jiro numberski. waxaan insha Allah maanta nala jooga oo diyaar noo ah xibin ka tirsan xiriirka Soomaaliyeed tenniska iyo legend weyn oo sportska magac ku leh macallin Baazale. labadaas qofood ayaa noo kala bixin doonta insha Allah qortoorka. nin walba meeshuu helo ayuu geli doonaa. isku aadka weynaa jadwalkan uu noo diyaarsan yahay insha Allah markaasaan ku dabaqi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ee meesha yimaadaan. waxaa ugu soo horbaxay Gift Star. waxay heshay number 2. Dolphin Hotel. Number 3. dekadaha. Number 5. Hagen. Ilyas. Number 1. Number 1.
sida inuu muuqato hadda waxay kala heleen numberiska oo isku taxan number 1 ilaa number 5 sida caadada ah ay maartay iskugu aadayaana waxay tahay numberka ugu horeeya iyo numberka ugu dambeeya gameka insha Allah hadii ilaahidmo kooxda gameka ugu horeeya ciyaar doonto wax waaye numberka ugu horeeya oo number 1 ah iyo numberka ugu dambeeya oo number 5 ah waa Ilaas iyo Dekada insha Allah ayaga noo fur doona horyaalka hadii ilaahidmo bismillaahir rahmaanir rahiim guud ahaan waxaan noo soo gabagaboway qortuurkii oo maanta aan u taagneen tartankii aan ugu magac darnay Astaan Tennis League sida u jeedin kooxaha waxay kala heleen numberskan waxa ugu horeeya kooxda koowaad Ilaas Printer Gift Star Dolphin Hotel Hagen iyo Dekada sida ka muuqata jadwalka waxay u ciyaari doonaan kooxda koowaad iyo kooxda ugu dambeeysa ee Dekada Ilaas Printer iyo Dekada insha Allah ayaga ciyaari doona koobka taariikhda markii taariikh ku tahay insha Allah June labadaas kooxood ayaa koobka fur doona hadii ilaahay idmo wixii jadwalaan insha Allah gadaalan ka soo sheegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.